gabay la yiraahdo garnaqsi oo Cismaan Yuusuf Keenadiid lahaa ereyay inaan ka soo qaato ama beedo sanadku waa 1953 waa markii Ingiriisku oo aarka kor u taagay uu kibray ee meel walba dunida uu haystay ee calanka Ingiriisku beel aanu ka taagnayniba aysan jirin waa baday hagada kuwaanu dheer yahay waxa kamid ahayd godobta Ingiriis iyo Najibiya oo garnaqi doona sababta garnaqsiga markii ugu horeysa loo culimada gadaalkan waxa galay khilaaf weyn khaliifiyada guutada watiy calanka giirgiiran iyo gabadhna soo baxay gadaal dhawaan yaa u garnaqi doona wadaadadu waligood culimadii hore iyo kuwo gadaalka foola oo hadba dunida duulba u kaca oo diin la soo shira qaban burxan baa gabaygaana lahaayo mar soo baxa waa iska jireen waa asmada imaka ay nahaysata iyo dhibaatadan aynu nabadiidka kula halgamayno amnigeeni doonayna inaynu ku sugno leh maya culimadii hore aqoon ma leh aniga ka aqoon badan diinta sida loo turjumo iyo sida loogu dhaqmayna aqaana nimanka u guntaday xornimo ee goor walba u taagan iyo kaan la garanaynin macnaha yaa u garnaqi doona kanyaanka halkay nala marayaan iyo sida inagu hayaan iyo waqtigiino inaanu isla garanno iyadiina waa loo baahanyahay waa garnaqsigii Cismaan Yuusuf Keenadiid duqeyda xafiisyada gashee talada goynaysa iyo geesiyaal dibadda jira oo ku gaafureegaya yaa u garnaqi doona ninka guriga cad degan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo niman odayaal oo la war xilliga waa ka dhamaaday meesha ka soo bax yaa u garnaqi doona miyaanay markaa ahayn guriga cad si looga baxo inaan ka heshiino guriga cadda sidii looga baxayo guriga cad si loogu jiro inaan ka heshiino sidii loogu sii jiraayo in albaabka laga galo asaan daaqada laga gelin soo maaha heshiisyadii aynu galnay aynu maaragtay toosintoodii iyo dhamaystirkoodii iyo fulintoodii waa wax inoo wadayaal ku dhaqankoodiiba waa garnaqsiga inta dambe laandheeraha iyo ka hadasho nin saalax la yaaba laandheere banaan digay ka hadle ee gabayga Cismaan Yuusuf Keenadiid dib baan inoogu dhigay waa mahadsantihiin saddex qodob baan rabaa oo mowduucu ka kooban yahay inaan wax kooban ka iraahdo ta koowaad dastuurka ta labaad federaalka ta saddexaadna doorashooyinka waa marka koowaad dastuurka waxaan filayaa sida ku jirta ajandaha berrito ayaa si faahfaahsan looga hadli doonaa waxaan se rabaa inay dhammaanteedna wada qirsannahay Soomaaliya ilaa sanadkii 2000 waxba u soo qabsoomayay axdi qarameed ilaa dastuurku meel gaar ah oo aynu maanta haysanno oo aynu ku shaqeyno oo in hor yaal habka labaad ee aynu qaadanay oo hadda aynu ku dhaqanaa waxa weeye nidaamka federaalka ah federaalku ma inoo wanaagsan yahay Soomaali federaal ma anfaca taas dood hadda furan oo u baahan in laga hadlo ma aha waynu ku jirnaa chick and egg philosophy digaagii ukunta iyo digaagada keebaa horeeyay already federaalki waa ku jirnaa ee federaal nooc ah baynu u baahannahay sidee baynu federaalka u sii kala hufnaa dawladda dhexe maxay awood u leedahay dawlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin maxay wadaagaan oo concurrent powers noqonaya maxay tahay in awoodaha haraadiga ah ee loo yaqaan residual power sida ay u kala qaybsanayaan ama u qaadanayaan maxay tahay taa waa waxa u baahan inaan sii kala qeexno oo iyadana haddii dawladnimadeenu sii adkaato dastuurkeenu adkaado habka federaalka aynu ku heshiinaynaa na uu noqonayo mid inoo kala qaybiya awoodaha jira ee dunida kale federaalka ku dhaqantaa sida ay ugu dhaqanto si loo mid ah inaguna u qaadano 1960kii xorriyadii ka hor digirada mirifle waxay yiraahdeen federaal fadaano gudoomiyaha khaldi asan ugu dhawaaqay Soomaalida kale ee ilmo maxaa tiri ama af maxaa tiri oo shanta Soomaaliyeed ka koobnay iyagu umay qurqursaneen federaalku inuu wax anfaco waaga dawlad dhexe oo awood badan oo shanta Soomaaliyeed ka kooban oo wajeer u heesaysa oo wardheer u heesaysa ayaa maankooga ku qufulnaa maray u arkeen federaalku Soomaalidii waaga inuu anfacayo marka waxaan leeyahay nooca federaalka aynu qaadanaynaa waxa uu baahan yahay inaynu ablayno oo aynu aad u qeexno oo laga shaqeeyo si dawladnimadeenu iyadana ay u saldhigto markii golaha wasiirada 2017 kadib saaxiibo badan aanu isugu nimid saaxiibkay Juxa marka golaha wasiirada la keeno sharci waxa uu oran jiray indha federaal ha lagu eego sharcigan loo eego keenay waa indha federaal waa in lagu eegaa
mar dambe waxaan maqlaayay dood ku saabsan confederal system aynu qaadano waxaan u maleeyay in ay tahay kala kici gurdumi axmed madoobiye rag baa aad u fahmaya iyo xuseen cabdi xalanay kala gaca gurdumi halka uu ku fadhiyay waxa uu yahay uma baahnin kala kici gurdumi umana baahnin federaal ilaa hadda in kala haya waxaynu u baahanahay dowladnimo dheeli tiran oo isku dhafan oo awooduhuna kala qaybsan yihiin oo aan la isugu xoog sheeganin oo xuquuq iyo waajibaadna kala xadeynaya haddaba federaalka qaabkee ayaa loo gelaya ilaa hadda aragtiyahaasi waa kala duwan yihiin haddii aad waraysato aqoon-yahanka midnimada aaminsan ee reer waqooyiga waxay ku odhanayaan federaalku waa inuu ahaadaa reer waqooyi iyo reer koonfureed haddii aad waraysato may waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo war federaalku waa inuu ahaada may iyo maxaa tiri nimankiinan reer maxaa tiri ee shanta soomaaliyeed ee kale ka koobani annagoo may ah iyo idinku federaal aynu qaadano waxaa laga yaabaa maya federaal baan hadda ku jirnaaye 5 dowlad goboleed iyo meeqaamka magaalada xamar sida aynu caasimadda u qeexayno iyo sida Somaliland aynu ku soo jiidi karno federaal ka hadlaya isagana aynu qaadano arrimahaasi waa kuwa federaalka u baahan in la guhabiheeyo oo laga sheekeeyo oo laga shaqeeyo waxaan u baahanahay hadda waxaan doonaynaa haddaba su'aasha in aynu ka jawaabno waxaynu ku gaari karnaa salaad walba xilligeeda la tukadaaye kama hadli karno su'aasha aynu weydiiyeen wiilasha iyo gabdhaha hay'adda cilmi baarista heritage inkastoo halkan xalimeeyay iyo waa joogaan baan filayaa gabdha heritage marka ay yimaadaan ama aanu kulano kuma arko halka qoondadii haweenku waa ku maqan tahay cabdirashiid iyo rag kale iyo caynta iyo waan arkaa cabdikariin iyo cabdilaahi iyo markaa horta heritage qoondada haweenka meel saar oo mahadsantihiin su'aasha aadaynu isnidhaahna ka jawaaba maanta taariikh baynu samaynaynaa taariikhda aynu samaynaa waxa weeye qaabkee ayaynu u gaari karnaa 2024 si aynu uga baxno duruufaha maanta aynu taaganahay arrinta doorashooyinka waa u iman doonaaye nin filosof oo la yiraahdo Karl Marx ayaa waxa uu ka sheekeeyaa taariikhda iyo waxa taariikhdu ay tahay waa wada taqaanaan waxaynu doonaynaa inaynu taariikhdeennii samayno laakiin ma u samayn karnaa sida aynu inagu u rabno men make their own history but they do not make it as they please they do not make it under self-selected circumstances but under the circumstances existing already given and transmitted from the past taariikhda ay umadi samaysanaysaa waxa uu ka timaadaa xaaladaha iyo duruufta ku xeeran maanta xaaladaha inagu xeeran duruufaha inagu xeeran waxa weeye kuwa istiidooyinka damaca leh aynu leenahay dowlad dhexe oo awood badan taariikh bayna soo marisay ee dowlad federaal ah iyo dowlad goboleedyo federaal ah aynu samaysano awood kala cadahay arrimaha amniga iyo nabadiidka sidee baynu u waajahnaa waxay u baahan tahay taariikhda aynu samaynayno inaynu iyadana uga jeedo waa duruufaha inagu xeeran ee ina qasbaya inaynu iyagana ku xisaabsano isu keenida dalka iyo midnimadiisa iyo xaaladda gaarka ee Somaliland saynu uga jawaabaynaa doorashooyinka iyo nooca ay ahaanayaan hal qof hal cod nidaamka xisbiyada badan sidee baynu u waajahnaa iyaduna waa mid kale oo ay tahay inaynu ka jawaabno duruufta inagu xeeran ee ina qasbaysa haddaba waxaan doonayaa inaan u imaado doorashooyinka imanka xilligoodu taagan yahay in yarna dib u noqdo kow markii doorashooyinka aynu isnigu gudagala waa ogeydeen nidaamka xisbiyada badan ee PR-ka loo yaqaano proportional representative system ayaynu golaha wasiiradu soo meel mariyay ku salaysan hal deegaan doorasho oo kaliya nidaamka liistada xidhan hal qof iyo hal cod doorasho ah in lagu galo baarlamaanku markii gudoomiye mursal ay u timid iyo golaha shacabka waxa ay u saareen guddida afartiiba waxa kale oo ku jirtay qodobka 89 dastuurka aynu wax ka bedelno oo shacweynaha Soomaaliyeed madaxweynaha ha doorto oo madaxweynaha toos ah loo doorto intiiba marka la isku daray baarlamaanku wuxuu yiri halka horta awoodiina waa ku lumaysaaba awoodda kaliya leedahay waa inaad madaxweynaha doorataa weeye tii kale sharci dejinta marka laga yimaado sharcigii dib aan u eegno intii uu ku dhisnaa oo dhan waa la bedelay waxaana la soo saaray sharcigii doorashada ee u dambeeyay labada goleba maray ee habka liistada furan ama first past the post ku salaysan 275 iyo 54 xildhibaan oo aqalka sare ah oo qof walba sidiisa loo doorto degmo doorashooyin kala duwan ah hal qof iyo hal cod ha guddi doorashana
ay shaqadii qabato dood badan baa ka dhalatay intaa kadib waxaynu isugu nimid Samareeb 1 2 3 madaxda qaranku isugu timid waxa la isla qaaday hal in doorasho dadban laakiin intii hore ka heer sareysa xagga tirada dadka codeynaya 301 cod bixiye 1000 ilaa 1500 oo qof oo cod bixiye la isugu geeyo kuraasta kursigiiba si ka qayb qaadashadu u ballaarnaato taas dood badan baa iyadana ka timid oo may dhicin dawladda Muqdisho inuu isugu nimid heshiiskii Muqdisho oo 17 Sebtembar iyo habraacyadiisii afarta ahaa heshiiskana baarlamaanku meel mariyay habraacyadana madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay kala saxeexdeen ayaa ah dokumentiyada maanta aynu haysano ee ay tahay doorasho inaynu ku galno xilligeediina ay taagan tahay heshiiskaas fulintiisu waa waajib in wada saaran oo inoo yaala sidee baynu heshiisku u fulinaa u meel marinaa qodobada uu ka kooban yahayna ay u noqdaan kuwa meel mar ah dad islaamo baynu nahay almuslimina calaa shuruudihim awfu bilcuquud awfu bilahd diinta idinka iga badiya oo culimo waaweyn inay isugu jirtaan in heshiiskii markaa uu meel maro walaalayaal waa wax inoo yaal sidee baynu u fulinaa sidee buu u meel maraa iyaduna waa su'aal inoo wada taala sidee lagu gaari karaa 2024 iyo 425 anu waxaan isleeyahay dhammaan shuruucda caalamiga ah gudooda marka la gelayna aasaas u ah kow daacadnimo inay jirto oo aynu isu wada daacadnahay niyad sami iyo niyad wanaag inuu jiro is-aamin inuu jiro oo aynu is-aaminayno oo ayna ahayn fadhigaan kaga kacaya ama shirka goorta ha lagaga kaco sidii qamaan bulxan lahaa baadida ninbaa kula dayday daan la kaa badane aan doonahayn inaad hesho daayin abadkaaye dadkuna moodi dul wada dhashan wax u dahsoonay marka ayaynaan ama annagu ama xubnaha kale ee fulinta ah noqon mid keenbana mid baadidiina waan wada daydaynaa Soomaaliyay haddana lagu inoo laaban tahay ay tahay taas haddii la isla helo waxaan aaminsanahay 2021 si fiican oo nabada Ilaahay adamkiisa inaan uga bixi karno